السلام عليكم daawadayaal Iigoorku waa qoomiyad ka mid ah qoomiyadaha Turkiga la isku yiraahdo ee dega bariga bartamaha waqooyiga iyo galbeedka qaaradda Aasiya. Qoomiyadan ayaa degta gobolka Xinjiang ee dhaca waqooyi galbeed Shiinaha, waana gobolka ugu weyn guud ahaan gobolada Shiinuhu ka arrimiyo. Gobolkaas oo u yaqaanaan Turkistaanta bari. Qoomiyadan tiro ahaan waa ilaa 12 milyan oo qof, waa muslimiin. 12 milyan oo kamid ayaa ku nool Turkistaanta bari. Halka milyan soo haray ayaa ku nool meel ka baxsan deegaankooda, waxa ay kamid yihiin ilaa 55 qoomiyadood oo laga tiro badan yahay oo Shiinaha ku nool. Dadka Iigoorka ayaa lagu hayaa cadaadis, tacaddi, dhibaatayn iyo sifayn ka dhan diintooda. Sababtoo ah waa qoomiyadda qura muslimiin ee ku nool ama degan dalkaas ee deegaan dhameystiran ku leh. Gobolkoodu waa mid qani ku ah kheyraadka shidaalka ugu horeeyo, waa gobol aad u weyn oo muhiim u ah dalka Shiinaha. Dawladda Shiinaha ayaa u aragtay bulshadan kuwa diintooda caqabad ku tahay nidaamka Shiinaha. Sidaa awgeed waxay dhaqaale badan ku bixisaa sidii bulshadaas dhaqankooda, diintooda iyo taariikhdooda loo tirtiri lahaa ee meesha looga saari lahaa. Waxa gobolkooda lala soo dejiyaa bulshada haanka oo ah qoomiyadda ugu weyn dalka Shiinaha. In ka badan 1 milyan oo kamid ah dadka Iigooriska ayaa lagu goray xiriyo xabsiyo ah oo loogu talagalay in laga bedelo dhaqankooda iyo diintooda. Dawladda Shiinuhu si ka baxsan bini'aadanimada ayay ula dhaqantaa dadka Iigooriska. Dawladda Shiinuhu waxa ay qabsatay xoog ku haysataa dhammaan ilaha dakhliga ka soo gala gobolkaas. Deegaankooda oo qani ah dhaqaale ahaan ayay ka farmoorojisay iyadoo caqabad looga dhigay diintooda iyo isirkooda. Qayb ka mid ah bulshada ayaa u soo qaxday wadamada galbeedka iyo Turkiga oo siiyo magangeliyo. Ma jiro dal muslim ah oo ku dhiiran kara inuu si cad ugu doodo xuquuqda qoomiyadda Iigooriska, baqdin laga qabo saameynta Shiinuhu ku leeyahay dunida. Warbaahinta galbeedka ayaa u bandhigta caalamka dhibaatada lagu hayo dadkaas, iyagoo adeegsanaya inay kaga faa'iideystaan danaha siyaasadeed ee kala dhaxeeya Shiinaha dalalkooda. Dawladaha reer galbeedka ayaa ay barkood ku taageeraan si dawladda Shiinuhu u caburiso dadka Iigoorka ah. Marraba ma muuqato rajo laga qabo inuu Shiinuhu bulshadaas xaqeeda siiyo ama uu madax banaani siiyo. Iska badaa inuu xorriyad siiyo, qofka ka hadlaya dunida u bandhiga dhibka haysta dadka Iigoorka ayaa la kulmay cadaadis kaga yimaada dawladda Shiinaha. Marka la eego sida ay wax u wada dawladda Shiinuhu 50 sano ee soo socda, bulshada Iigoorka gabi ahaanba dhulkooda ayaa la wareegi doonaa. Dhammaan gobolka waxa ku nool 10 milyan oo qoomiyad ahaanka ah, qoomiyadda ugu badan dalka Shiinaha, kuwaas oo ay dawladda Shiinuhu ku deegaamisay dalkaasi. Mareykanka iyo dalalka cadaadiska ku saari kara Shiinaha arrinkan ayaa indhaha ka laabtay. Mararka qura ay ka hadlaan ama indhaha caalamka ku jeediyaan waa marka ay Shiinaha dano siyaasadeed isku hayaan ee xifaalta dhexmaro. Halka dalalka muslimiinta badankooda aanay awood u lahayn inay ka hadlaan ama soo hadal qaadaanba. Sababta ugu weyn ee dawladaha Islaamku indhaha uga laabteen dhibaatada lagu hayo qoomiyadda Iigoorka ayaa ah in aanay jirinba hogaamiyayaal muslim ah oo awood u leh inay farta si toos ah ugu fiiqaan dhibaatada dawladda Shiinuhu ku hayso dadka Iigoorka. Warbaahinta Turkiga iyo kuwa Qatar ayaa badanaa soo bandhiga arrimaha la xiriira qoomiyadani.